madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi wuxuuna hadal ka jeedin doonaa in ka badan 600 oo mas'uuliyiin adduunka ka kala socota kuwaas oo maqli doona Soomaaliland taasi oo lagdii siyaasadeed ku noqotay Soomaaliya oo inta badan sheeganaysa 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliland waxa isha lagu wada hayn doonaa hadal jeedinta hogaamiyaha Soomaaliland ee shirka sida markale Soomaaliland iskaga iibiso fagaaraha dunida. Soomaaliland ayaa markale iska xaadirisay fagaarayaasha caalamiga taasi oo lagdii siyaasadeed ku noqotay Soomaaliya oo inta badan sheeganaysa 30 sano ee la soo dhaafay Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya ayaa ka qayb galaya shir caalami oo noociisa aan hore Soomaaliland uga qayb gali jirin wuxuuna hadal ka jeedin doonaa in ka badan 600 oo mas'uuliyiin adduunka ka kala socota kuwaas oo maqli doona Soomaaliland halka ay joogto isla markaana ay qadiyadeeda ay ka iibin doonaan. sanadkii hore bilowgiisa ayay sidoo kale Soomaaliland fagaarayaasha siyaasiga ee adduunka iskaga iibisay kadib markii isfaham ay kala saareen Soomaaliland iyo Itoobiya taasi oo fadhiga u diiday filla Soomaaliya sidoo kalena keentay in dabka ay kala qaadan waayaan Addis Ababa iyo Muqdisho ilaa heer ay ku sigteen inay iskula yimaadaan dagaal foolka foola isla markaana ay isku adeegsadeen nooc kasta oo diblomaasiyadda ka maran. si kastaba ha noqotee heshiiskaasi waxay Soomaaliland ka dhaxashay sumcadda iyo sidoo kale in dunidu ay wax iska weydiiso Soomaaliland iyo qadiyadeeda. si kastaba ha noqotee waxa isha lagu wada hayn doonaa halka uu ku dambeeyo Soomaaliland iyo sidoo kale hadal jeedinta hogaamiyaha Soomaaliland ee shirka sida markale Soomaaliland iskaga iibiso fagaaraha dunida ee 30 sano ee la soo dhaafay ay ka maqnayd iyadoo buuxisay nooc kasta oo dowladnimada lagu buuxin karo.